kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada musalsalka Kani Waa Jaceylkeyga xalqadiisii 229aad. Maanta waan awoodi weynay taxanaha hirjaaya inaan soo gudbino sababtoo ah taxanahan wuxuu u baahan yahay waqti dheer iyo juhdi in la galiyo diyaarintiisa. Marka berita ayaan u dib dhignay, maanta waan awoodi weynay. Marka sidaas ogaada nagaraale noqda. Insha Allah berita waan soo gudbinaynaa. haddaba taxanayaashii kala ahay Kani Waa Jaceylkeyga iyo qof oo lunsaday caashiqa oon maanta ugu talagalnay misano qorshe ahaa inaan dib u dhigno oo beri aan soo gudbino ayaan maanta soo gudbinaynaa maadaama taxanaha hirjaaya uu dib dhacay. haddaba Kani Waa Jaceylkeyga xalqadiisii 229aad waxay ka bilaabanaysaa halkii ay ku dhammaatay xalqadii hore. Gabadhii suxafiyadda ahayd ee wareysan lahayd Mahima iyo Rudrakash ayaa guriga imaanayso. Guriga Quraana markay imaato waa la soo dhaweynayaa. Waxay isbaranayaan. Mahima waxay leedahay aniga magacayga waa Jitnaa, suxufiyad caan ayaan ahay. Mahimana waxay leedahay anigana waxaan ahay Mahima oo xaaska Rudrakash Quraana ayaan ahay. Halkii ayaa lagu soo dhaweynayaa gabadhii Jitnaa ahayd. Jitnaa waxay leedahay waxaan doonayaa inaan ogaado qaabkii aad adigu ku noqotay markaasi Rudrakash xaaskiisa, sababtoo aniga waxaan ogaa Preesha walaasheed inaad ahayd. Markaas Mahima oon hadlin ayaa waxaa hadlayso ahana oo meesha joogtay. Waxay leedahay sababta ay Mahima ku noqotay Rudrakash xaaskiisa wax kale ma ahan, sababtoo ah bini'aadanimada marka la fiiriyo Mahima iyo Preesha. Mahima ayaa fiican oo insaan fiican ah, sidaas ayaa markaasi Preesha ayooga baxday noloshii Rudrakash. Mahimana ay degdeg ugu soo biirtay. haddaba gabadhii Jitnaa ahayd ee suxufiyadda ahayd waxay gudagalaysaa inay furfurto markaasi wareysigii. waxay leedahay Mr. Quraana, Rudrakash Quraana ayaan rabaa inuu imaado kana soo qayb galo wareysiga maadaama isagii Mahima loogu talagalay. ahana ayaa dhehaysa markaasi gabadhii shaqaalaha ayay la hadlaysaa. waxay leedahay orod u waca Rudrakash. kadibna gabadhii suxufiyadda ahayd waxay u jeesanaysaa dhankii kaamirada maadaama wareysiga uu yahay mid live ah oo markaasi live lisugu wareysanayo, dadkana si public ah ay u daawanayaan. waxay leedahay haddii aan furfuro wareysiga kusoo dhawaada, maanta waxaan wareysanayaa oo wareysi ka qaadayaa mid ka mid ah ragga ugu caansan magaalada Delhi, Rudrakash Quraana iyo weliba xaaskiisa cusub ee Mahima Quraana. labadooda ayaan maanta wareysi ka qaadayaa. haddaba gabadhii shaqaalaha way soo laabanaysaa. waxay dhehaysaa Rudrakash guriga ma joogo. markaas ayaa waxaa dhacayso in lisweydiiyo halka uu ka baxay ninkii Rudrakash ahay. gabadhii suxufiyadda waxay leedahay Mr. Quraana halka uu ka baxay, wareysigan muhiim ayuu ahaa inuu kasoo qayb galo. markaas ayaa Saaransh soo baxayo. wuxuu leeyahay Rudrakash kii weynaa ma joogo, laakiin midkii yaraa ayaa joogo. mudanihii weynaa ma jooge, midkii yara ayaa joogay, isagana bedelkiisii wareysiga ka qayb galayo. sababtoo ah Rudrakash markuu baxayay oo isagii Preesha ay Mumbai aadayeen, Saaransh ayuu la dardaarmay. wuxuu dhahay booskeyga adiga galayo, interviewgan ama wareysiganna adiga ayaa markaasi booskeygi buuxinayo oo wareysiga laga qaadaya. haddii lagu dhahay intuu aadayna uma sheegi kartid cidna, sidaas samee wiilkeygiyo. Saaranshana wuxuu dhahay aniga igu halay barnaamijkaas. haddaba Saaransh ayaa wareysigii kasoo qayb galayo. markaasay Jitnaa su-aashii koowaad ayay weydiinaysaa. waxay leedahay wiilkeygii Saaransh waxaan ku weydiinayaa adigu maxaad Mahima u dhahdaa hooyo? Mahima maxaad u dhahdaa hooyo kaliya, maxaad u dhihi weysay oo magacayda Mahima aad u raacisaa? wuxuu dhahayaa sababtoo ah Dictoresa Preesha Quraana kaliya ayaa hooydii ah, iyada kaliya ayaan magaca hooyo ugu yeeri karaa. laakiinse Mahima waa inaan hooyo Mahima aan dhahaa oo magacayda aan xusaa, sababtoo ah Preesha ayaa hooydii ah. markuu sidaas dhahay kadib ayaa waxaa dhacayso Mishka gabadhii ahayd oo meesha taagneed. waxay leedahay cunugan yar bal jiliinkiisa fiiriya. ahana waxay leedahay aniga cunugii iguma socdee, Mahima wejigeedan ku maqanahay maanta sida loo ceebeysanay sida loo bahdilayo. haddaba Mahima waxay isku dayaysaa wiilka yar ee Saaransh inay wareysiga ka celiso, laakiinse isaga wareysigii wuu ka qayb galayaa. si fiican ayuu su-aalo badan uga jawaabayaa ilaa ugu dambeyn oo wareysigii ka dhammaado. Jitnaa waxay dhehaysaa wareysigii wuu dhammaaday.
waxaase kasii fiicnaan lahayd maanta inuu kasoo qeyb galo wareysigan Rudrakash Kurana, sababtoo ah adigii isaga lamaana ayaad tihiin, markaasi caan ayaad noqon lahaydeen. sidoo kaleetana si official ah ama si rasmi ah ayuu Rudrakash ugu dhawaaqi lahay inaad xaaskiisa tahay. wareysigaasna daafaca caalamka meel walba ayaa lagu faafin lahay, laakiinse ma uusan kasoo qeyb galin. si kastii ahaataba dhib ma lahan. Mahima waxay dhehaysaa wuu kasoo qeyb gali lahaa, laakiinse arrin yar ayuu ku mashquulay. wuu isoo wacay waxaanay dhahay mashquul ayaan dhex galay, marka dhib ma lahan. sidii ayay ku baxaysaa gabadhii suxufiyadda ahayd ee Jitna lagu magacaabayay. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa oday Balraj ayaa qeelo bilaabayo. wuxuu la hadlayaa xaaskiisii Shardaa. wuxuu leeyahay Shardaaye, waxaad ii sheegtaa ninka Rudrakash halkuu ka baxay. waa qeyr mas-uul. hadduusan interviewgan ama wareysigan ka qeyb galaynin muxuu marka hore u sheegi waayey? intuu waan ka qeyb galayaa dhahay ayuu meeluu ka baxay la ogeyn wuu iska tegay. ninkan aniga ma garanayo wixii aan ku sameyn lahaa iyo hadallo noocaas ayuu dhahaya Balraj. intaas kadib waxaa hadlayso Ahana. waxay leedahay iyadoo markaasi Mahima hadallo xunxun ku durayso, waan ka xumay maanta Mahima sida loo galay. tani waxay cadeynaysaa Rudrakash inuusan Mahima jecleen, sababtoo ah wareysigii kama uusan soo qeyb galin. Mahima hadallo markaasi bahdil ayaa la dhahaya iyadoo markaasi laska dhigayo qof loo diirnaxayo. Mishka ayaa iyadana hadlayso Ahana walaasheed ahayd. waxay dhehaysaa aniga ma garanayo Rudrakash meeluu ka baxay, balse maanta waan ka xumay Mahima tan ku dhacday, waayo waxay filinaysay in Rudrakash uu kasoo qeyb galayo wareysigan, labadoodana halkaasi si wacan looga wareyso looga qaadayo. haddaba Mahima way dareensan tahay labadan naag hadallada ay ku durdurayaan, iyada laakiin iskuma mashquulinaysay. waxay markaasi fahmaysaa in Rudrakash uu bedelkiisii Saaransh wareysiga soo diray oo isagana meel uu aaday. marka waxay dhehaysaa oo niyadiis ka dhehaysaa maadaama Rudrakash uu qalad galay, Saaranshna uu bedelkiisii wareysiga u xil saaray, oo inaan ciqaabaa wiilka Saaransh ah. way soo bixaysaa qolkii Saaransh soo galaysaa, albaabkii hoosta ka xiranaysaa. Saaransh meeshuu ku jiro wuxuu leeyahay ka waran sidan wareysiga la iiga qaaday oo su-aalaha aan uga jawaabay. gabadha suxufiyadda ah waxay ku celcelinaysay Rudrakash yaray ayay dhehaysay, oo inaan aniga markaasi Rudrakashkii koobiga ahaa ayaba iga dhigtay oo Rudrakash yaray ayay dhehaysay. ka waran sidan su-aalaha uga jawaabay, ma ka baxsaday mise waan ku guuldaraystay? hadallo noocaas ayuu dhahayaa. iyada laakiin waxay usoo gashay inay xanuujiso, gacanta ayay ka xanuujinaysaa. markuu xanuunsado wuxuu leeyahay gacanta waad i xanuujinaysaa ee iga dhaaf, haddii kaleetana aabba Rudra iyo hooyadii Preesha ayaan kuu sheegayaa. waxay leedahay haddii aad doonaysid inaan ku dhaafo, Rudra halka uu aadi ii sheeg. suun ayay soo qaadanaysaa ama karbaash waxaad moodid, waa suun bay wadataa, waxayna doonaysaa inay garaacdo. wuxuu leeyahay ma garanayo meeshuu aaday, ee waxaad ogataa mar dambe haddaad isku daydid inaad wax igu dhafatid, aabbahay ayaan kuu sheegayaa. haddaba iyadii waxay leedahay haddii aad ii sheegi weyse waan ku garaacayaa. wiilkii intuu cabsado ayuu isku dayayaa dhankii albaabka inuu ku ordo misena baxsado, laakiinse intay qabato ayay markaasi musqushii ama sooligii ku xiraysaa, halkaasay ku garaacaysaa ilaa isagana uu ku tugtamo. fadlan waan ku baryahay xanuujinin iga dhaaf garaacista. wiilkii wuu qaylinayaa, waxay leedahay aamus qaylada jooji, ii sheeg Rudrakash halka uu jiro. dhinaca kaleeta Rudrakash iyo Preesha Mumbai way kasoo laabteen. Rudrakash Preesha ayuu soo dhaweeyey, gurigii hooyadeed iyo aabaheed ayuu keenay. iridda markay imaadaan ayay dhehaysaa Preesha Rudrakashow adiga ayaan kuu walwalayaa. markaasuu isagana dhahayaa aniga xitaa adiga baan kuu walwalayaa. dhinaca kaleetana Saaransh saacan interviewgii ama wareysigii inuu bedelkeygii si fiican kaga baxsaday oo wareysigii laga qaada ayaan filayaa. markaasi Preesha waxay leedahay muuqaalkii aan kasoo duubnay Gautam koobigiisii mobilkaada ayaan kuugu soo xabilay, lacalla haddii dhacday in mobilkeygii laga bixiyo ama laga daliid gareeyo oo laga masaxo, kaada ayaan ku baxsanaynaa, marka kaadan kuugu soo xabilay ee inoo keydi. haddaba sidii ayay ku kala tagayaan iyadoo markaasi uu Rudrakash dhahayo beri subaxdii muuqaalkan waxaan ku wareejinaynaa booliska, sidaasana Mahima markaasi baxar ay ku galayso oo sirteedii dhan aan ku kashafeynaa.
sidii ay ku ballamayeen kuna kala tagayaan. Gabadhii Preesha ahaydna qolkeedii ama gurigii ayay sii galaysaa, Rudrakshna gurigiisii ayuu soo aadayaa. Mahima qorshe fiican ayay cayaartay. Wiilkii markay garaacday ee Saaransh ahay dharkii ayay ka bedeshay, labis kale ayay u xirtay, wayna u hanjabtay. Waxay tiri haddii aad isku daydid inaad u sheegtid inaan ku garaacay aabaha Rudraksh, haddii aad u sheegtid waxaad ogaataa Rudraksh iyo Preesha ma dhaafi doono, waan dhibi doonaa. Waxay leedahay marka iska jir, ha u sheegin, cidna ha u sheegin haddii aad doonaysid aabaha iyo hooyada inay badbaadaan. Wiilkii way u hanjabtay. Rudraksh ayaa imaanayo, waa isla habeennimadii ayaa lagu guda jiray. Markuu guriga imaado way qabanaysaa. Waxay leedahay halkeed ku maqneyd maanta oo dhan? Wuxuu leeyahay shaqo ayaan kusoo daahay, mashquul ayaan dhexda ka galay. Markaasay dhahaysaa wax dhiba ma lahan, waraysiga bedelkeedii Saaransh ayaa markaasi galay booskaadii, si fiican ayuu su-aalaha oo dhan uga jawaabay. Markaas ayuu dhahayaa niyadda ka leeyahay oo maba aysan caroonin miyaa, sidoo kaleetana igama aysan shakinin, oo iska faraxsan tahay, oo arin fiican. Ilaa beri subaxdii laga gaaray, sidan haska ahaato, beri subaxdii markaan boolisku ku wareejino wax walba meeshay ku dhammaanayeen ayuu niyadda ka dhahayaa Rudraksh. Kadibna wuxuu isku dayayaa qolkii Saaransh inuu aado, laakiin iidaa celinaysa. Waxay leedahay Saaransh wuu hurdada ka kicinin ee orod qolkaada gal. Markaas dharkii inuu iska bedela ayuu damcaya. Rudraksh qolkiisii ayuu aadayaa. Mahima mar labaad ayay u caga juglaynaysaa ama u hanjabaysaa wiilkii Saaransh ahay. Waxay leedahay haddii aad isku daydid inaad u sheegtid Rudraksh runta iyo inaan maanta ku garaacay iyo wixii dhacay oo dhan, waxaad ogaataa inaan ku dhaafaynin, sidoo kaleetana aabaha iyo hooyadana ma dhaafay, sidaas ogow ayay leedahay. Subaxdii dambe marka la gaaro, wiilkii Saaransh ahay miiskii quraacda ayuu kasoo qayb galaya oo dadkii dhan wada fadhiyaan. Markaas ayaa Balraj wuxuu leeyahay, waxaa ku dhahayaa wiilkaygii oo ma fiican tahay, maxaan kugu dhacay? Isagoon jawaabin misana cabsanaya ayaa Mahima hadlaysa. Waxay leedahay wax balaayo ah ma qabo, wuu fiican yahay, laakiinse xalay ayuu ku dhafray mobilka gameka lagu ciyaaro. Marka dhafar unbaa hayso, wax kaloo hayo ma jiraan. Markaas ayuu Balraj dhahayaa aabe Rudraksh halkuu ka baxay? Mahima ayaa dhahaysa aniga hadeer uu soo wacayo. Qolkii markay gasho waxay ogaanaysaa Rudraksh inuu suuliga ku jiro, uu qabiisanayo. Markaasay mobilkiisii fatashaysaa ama baaraysaa. Waxay ogaanaysaa in xalay Rudraksh iyo Preesha ay Mumbai u safreen, isla habeennimadan ay Mumbai kusoo laabteen. Intaas kaliya kuma hakanaysay, waxay sii ogaanaysaa haddana inay la kulmeen ninkii Gautam ah ee iyada horey usoo dhacday, lacag badanna kasoo dhacday. Markaasay naxaysaa. Waxay arkaysaa muuqaalkii Gautam waraysiga loogu soo qaaday oo Mahima sirteedii oo dhan uu ku kashifayay, inay khiyaanooley tahay, rag badanna dhacdo. Markaasay fahmaysaa qorshii ee xalay uu ku maqnaa ninka Rudraksh ah, Preeshana ay ku raacday. Markaas ayay ka tirtiraysaa mobilkii, muuqaalkii ku jiray ayay ka masaxaysaa. Markay muuqaalkii tirtirto ayay waxay is leedahay muuqaalkan waa koobigiisii ama originaalkiisina mobilka Preesha ayuu dabcan ku jira, sidan u maleynayo. Ee qaabkeen Preesha mobilkeeda kaga tirtiraa muuqaalka ku jira iyo koobiga ah? In cabaar ah markay fikirto ayay markaasi dhoola cadeynaysaa. Waxay leedahay oo fikradan maxay mar hore igu soo dhici weysay? Yacni fikrad fiican ayay heshay oo mobilka Preesha ay kaga masixi karto muuqaalka ku jiro, taasoo muuqaalkaasoo iyada sirteeda oo dhan cadeyn kara. Haddaba way dhaqaaqaysaa. Mar cabaar kadib waxaana la tusayaa Preesha iyo Rudraksh oo saldhiggii booliska tageen. Markay halkaasi booqdaan, isbatoore ayay la kulmayaan askari ah. Markaasay dhahayaan askari, waxaan kaaga dacwoonaynaa Mahima oo ah hadeer xaaska Rudraksh, waa khiyaanooley, rag badan ayay dhacday, cadeyn weyn ayaan ka helnaa. Wuxuu leeyahay maxaad cadeyn u haysaan? Haddii aad cadeyn haysaanna aaway? Preesha waxay leedahay waxaan haynaa muuqaalkaasoo aan kasoo duubnay mid ka mid a raggii ay horey u dhacday, lacag badanna ay ka cuntay. Markaas ayuu dhahayaa hal ii tuso muuqaalka. Muuqaalkii ayaa la tusayaa. Markay Preesha muuqaalkii baarto, maba ku jiraba muuqaalkii, way weynaysaa. Haddaba xalqadda waxay ku dhammaanaysaa Preesha oo muuqaalkii weysay misana naxsan, Rudrakshna uu la jiraa. Xalqadda beri ayaan ogaanaynaa, laakiinse beri herjaaya ayaan ku mashquulaynaa oo maanta naga baaqatay. Arbacada ayaa inoo balan ahay laba xalqadood oo isla socdaan ayaan arbacada idiin soo gudbinaynaa.
waa xalqada arbacada iyo midda berita oo talaada insha allah. Waxaan idiin raacinaynaa marka goosgooska ama hordhaca laga soo bandhigay xalqada 230aad maadaama hadeer aan falanqeynay xalqadii 229aad. marka xalqada 230aad waxaan ku arkaynaa ama goosgooska lagu soo bandhigay Preesha oo gurigeedii joogto ayaa Mahima kartoon yar usoo dirayso oo hadiyad ahaan ah. kartoonkii markuu soo gaaro gabadhii Preesha ahayd kartoonkii ayay furaysaa, waxbay ka urinaysaa, markay waxay uriso bay suuxaysaa, dhulkay ku dhacaysaa. markay suuxdo kadib waxaana la tusayaa Mahima oo markaasi gaarigii ninkii Gautam ahay bareega u jaraysa ama fariinkii u jaraysa. Gautamna waa ninkii muuqaalka laga soo duubay ay Mahima sirteedii oo dhan ka shafay inay isaga lacag ka dhacday, rag badanna hore ee lacag uga soo dhacday, magacyo kala duwanna ay la baxdo. haddaba ninkii Gautam ahay gaarigii ayaa fariinka loo gooyay. Gautam gaarigiisii markii uu wato shil ayuu galayaa, isla goosgooskana ugu dambeyn goosgooska waxaa kaloona lagu tusayaa Fasuu oo ah Preesha hooyadeed iyo waliba oday GPS oo Preesha aabaheed ayaa guriga imaanayaan, waxayna arkayaan Preesha oo suuxsan, halkaasay labadoodiiba ku wada naxayaan. haddaba maxaa dhici doono, Preeshase maxaa ku dhici doona maadaama ay suuxday? xalqadoo dhammaystiran aynu ku ogaanaynaa insha allah. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa marka guud ahaan falanqeyntii xalqadii iyo waliba goosgooskii hordhacay la jiray. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.